jilaaga caanka ee Cabdi Muriid Dheera Jakis iyo qaar kamid ah qoyskiisa ayaa ka cabanaya sida uu sheegay gurigu ku leeyahay degmada Xamarweyne waxa uu sheegay in gurigaasi si sharci darro ah ay ku haystaan dad waxa uu baaq u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha cadaaladda dalka waxa uu ka codsaday in laga soo gaaro boobka lagu hayo gurigiisa sida uu sheegay kaga tageen waalidkiisii geeriyooday walaalayaal aniga dacwaan ahay aniga nin dacwo ma ihi nin buuq ma ihi nin fooda ma ihi aniga waxaan ahay nin wadankiisa magac iyo sumcad ku leh wadankiisa nin magac iyo sumcad ku lahaan ahay nin qaran baan ahay dad ma dulmo wadanka ahad ka ahad waa u duceeyaa ilaahu qulubtooda burcad isku mari ilaahu laabteen isku soo du dhul awoowiyaalkayga lahaayeen heer banaadir ma kala saaraya aniga dhul awoowiyaalkeena lahaay ayaa waqti hore sharci dara lagu qaatay waa 35 sano kadib 40 sano ka hor waay dhulkii hadda waxa soo heri 10 kii aan aniga u doodi dawladdan tagay waxaan geey odayaashii heer banaadir waa la soo cadeeyay inaan anaga leenahay oo cadkiisa goosahayo ma baaf xawla ku jirta maniyo qof walba Axmed Suleyman Honkebel TV magaalada Muqdisho